15 أبريل ومالنت loo asteeyay dhirbeerista Somaliland haddaba isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta gobolka Saraar oo ay weheliyaan shaqaale weynaha wasaaraddaasi ayaa maanta xusay maalinta dhirbeerista Somaliland oo ku beegan 15 Abril ugu horeyn halkaasi waxaa ka hadlay badiba mas'uuliyiintii ka soo qayb galay maalinta xuskani waxaan ku faraxsanahay inaan kala soo qayb galo xafladda maalinta dhiraynta qaranka Jamhuuriyadda Somaliland loo asteeyay 15 Abril bayskiisu ka soo bilaabaa subax walba uu soo jarmaada isagoo jeekimaya dhirtii uu beeray waxa weeyaan ilaahay markii iyo inay waxa weeyaan sidii uu u beeray ay u soconayaan cali horta marka dhirtan suuca baa loo qaybiyay degmooyinka ilaa dhalaa lagu sheeyso cayraba waridaad iyo oog iyo dhammaan tuulooyinka ku hareeraysan dhirtan way gaadhay 1500 oo geed baa ka yimid wasaaradda deegaanka wasaaraddan aad bay u shaqeysaa gobolka iyaga ka shaqeysaa laakiin wasiir waxaan ka codsanaynaa iyo agaasimaha guud iyo wasiirka waxaan ka codsanaynaa in shaqaalahan degdeg loo kordhiyo aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galo xafladdan oo ah mid qiimo badan dhirtu waa nolosha waa waxa halbeelaha nolosha weeye mana aha wax ciyaara wasaaradda deegaankuna waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa intii ay jirtay dardarta ay gelisay maxay haytay in la dhireeyo dhulka waxaan halkan ugu hambaleynaynaa wasaaradda deegaanka gobolka Saraar xafladan ay ku qabatay xafiiskeeda aad baan ugu faraxsanahay shaqada ay fiican ay wada wasaaradda deegaanku waxa weeye 15 Abriil waxa weeye maalintii dhiraynta adduunka sida runtii halkan waxaan joognaa xafiiskii wasaaradda deegaanka ee gobolka Saraar sida runtii waxaan u mahadcelinaynaa isuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Saraar sida uu ilaalinayo deegaanka ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay isuduwaha wasaaradda deegaanka iyo horumarinta gobolka Saraar Farxaan Salebaan Gaas oo faahfaahin ka bixiyay muhiimadda ay maalintan u leedahay qaranka Jamhuuriyadda Somaliland dhirta gobolka Saraar ee wasaaradda deegaanku soo dirtay waa 1500 oo geed dhirta tuulooyinka oo dhan waanu gaarsiinay bulshada Saraar waxa kale oo aan maanta idin sheegayaa qofkii geedka dhidinka ah lagu qabto isagoo goynaya waa xarig iyo ganaax lagu qabto isagoo oo gurigiisa ku ooday ama barkad ku ootay isagana tallaabo sharci ah laga qaadaya madaxda wasaaradda deegaanka wasiirku ugu horeeyo wasiir Shukri iyo agaasimaha guud oo markasta shaqada lagu garab taagan iyagana waan salaamay وعلي آدم برد علي تاني وركة تلفزيون كون كيبل مقالة دعينبا